Bismillahirrahmanirrahiim. Habeen wanaagsan qodobada wararka ugu doorqaroon janalka social media idinkaasina waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay aynu idinkaga hayno dhageysiga kiiska dacwadda badda ee maxkamadda ICJ. Kenya oo shaacisay tallaabo ay qaadayso kadib markii ay ka baxday dacwadda badda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo wasiir fawziye oo qaatay talaalka COVID-19 ee la keenay Soomaaliya. James Wam iyo Yamamoto oo durba cadaadis ku bilaabay qoorqoor. Wararkii ugu dambeeyay ayaynu idinkaga haynaa. Ku soo dhawaada faafahinta warka. Magaalada Hague ee dalka Holland waxaa maanta mar kale ka sii socon doona dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Dooda Soomaaliya ayaa maanta halkeeda ka sii soconaysa iyadoo ay mar kale qareenada Soomaaliya jeedin doonaan doodooda ku aadan difaacidda biyaha dalkeena. Sidoo kale qorshaha ayaa waxa uu ahaa in qareenada Kenya ay beri bilaabaan doodooda, balse Kenya ayaa baqan iyada oo ka baxday kiiska badda ee ICJ. Soomaaliya oo shalay hadal ka jeedisay fadhiga maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa shaaca ka qaaday inay ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda, iyadoo intaa ku sii dartay in maqnaanshiyaha Kenya uu lid ku yahay sareynta sharciga. Marka la eego sida ay ku socoto dacwadda ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladuba waxay rajo ka muujiyeen ku guuleysiga kiiskaasi oo muddo sanad ah soo jiitamayay. Si kastaba dhageysiga kiiskan ayaa bilowday iyadoo Kenya aysan ka qayb gali doonin dhageysigiisa maadaama ay haatan ka maqan tahay fadhiga maxkamadda. Wasiirka caafimaadka xukuumadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Fawziye Abikar Nuur ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata talaalka COVID-19 ee shalay la keenay Soomaaliya. Wasiiradda waxay noqotay mas'uulkii ugu horeeyay ee qaata talaalka. Tanina waxaa lagu tilmaamay inay dhiirigelinayso isticmaalka talaalkan. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay talaalka iyadoo walaac badan laga muujinayo talaalka xanuunka COVID-19 maadaama in ka badan 10 dal oo dunida ah iska joojiyeen. Talaalka cudurka COVID-19 ee ay soo wada saareen shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa shalay laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay inuu gaarayo 300 oo kun oo nooca Oxford AstraZeneca si loo gaarsiiyo 20% dadka ku nool Soomaaliya. Waxaa talaalkan la siin doonaa howlwadeenadeena caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada, booliiska, dadka da'da ah iyo dadka la daalaa dhacay xanuunada kala duwan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysanaya barnaamijka COVAX oo ay hogaaminayso qaramada midoobay ay ujeedkiisu yahay in talaalka COVID-19 lagu gaarsiinayo wadamada saboolka ah. Beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku bilowday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor saacado kadib markii uu Muqdisho soo gaaray maanta. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan iyo safiirka Mareykanka Donald Yamamoto ayaa labaduba si kala duwan ula kulmay Qoorqoor waxyar uun kadib markii uu yimid caasimadda. Qoraal ay madaxtooyada Galmudug ka soo saartay kulanka James Wam ayaa lagu yiri madaxweynaha Galmudug iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay James Iswan ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee Muqdisho iyo shirarkii guddiga farsamo ee Baydhabo kuwaas oo kusoo gabagaboobay 16 Febraayo 2021. Madaxtooyada ayaa sidoo kale kulanka Yamamoto ka tiri madaxweynaha Galmudug iyo danjiraha Mareykanka Yamamoto ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamku ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii tagay ee Muqdisho iyo shirarkii guddiyada farsamo ee Baydhabo kusoo gabagaboobay 16 Febraayo 2021. Ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Iswan iyo Yamamoto ay labaduba ku cadaadinayaan Qoorqoor inuu aqbalo shirka ay beesha caalamka garwadeenka ka tahay ee ka dhacay Xalane oo shaki uu soo galay ka qaybgalkiisa. Kadib markii maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku gacan saartay dalabkii Kenya ee ah in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ayaa xukuumadda Nairobi waxay ku dhawaaqday tallaabo kale oo qaadayso. Kenya ayaa shaacisay in kiiskaasi ay hordhigi doonto ama u gudbin doonto Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si ay u soo farageliyaan ugana doodaan
Dowladda Kenya oo aan shalay xaadirin fadhiga maxkamadda ee dhageysiga dacwadda ayaa wadata marmarsiyo ay ku dooneyso inay qiil uga raadiso maqnaanshiyaheeda kadib markii ay ku gacan saartay maxkamadda cadaaladda adduunka. Sidoo kale, Kenya oo ka mid ah dalalka aan rigliga ahayn ee ka tirsan Golaha Ammaanka ayaa dooneysa in la iskula tago Qaramada Midoobay, waxaana arrintan ay muujinaysaa inay Kenya ku jirto xaalad quus ah oo ku aadan dacwadda badda ee maxkamadda adduunka. Soomaaliya oo isdifaacideeda shalay ka jeedisay magaalada Hague ayaa maanta mar labaad ku laaban doonta fadhiga maxkamadda si ay u sii socoto dhageysiga dacwadda. Si kastaba, Kenya ayaa 14kii bishan ku dhawaaqday inay isaga baxday dacwadda badda, waxa ayna ku doodeysay maxkamadda inay u xaqlinayso Soomaaliya, sidoo kale uu saameyn ku yeeshay inay qoratay qareenno cusub. Gabi ahaan inta ayaynu kusoo gabagabeyneynaa warkeena habeenimo. Haddaad channelka ku cusub tahay, kusoo dhawow. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.